السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي سودا وهذا ميلو البيتود أدوية كذا سوانتهين وواس كدقبرة وها قبلو فارح ولا الكيس معو كي كيرا بشير بالله متناين حسن قرو صاحب كيس قرشو درس كيس كنورا وراؤنا قرسيكوسا هاجا بكجا لقتي معنا السورية بناوين شنطا بقى بقوري رين نبض إيا نرول ميل والبو ود أدوية كذا سوانتهين واردي سلام يا سودا وهذا واردي كفانا قوش السومالي وين وحي أسو هويانيسا هويا والبقو الصوماليين آبا والبقو الصوماليين قريسا أيي تغيسا قوش أمدس قوش أي دولد ندا أي جارتو وحان إذن لاي هاي ميل والبقى جوكتان رين نبط إيا نلول دقبرو ولالكين وونا إذن كفانا مر والبرا وحان إذن شيغا إن دولد الندى أي قولي سريش إن كقولي سرينو كوا أشقيا شيشيا يان مرول بكو سعاليا ما شاء الله قوليستا شيرقرايا عدلدن قارسية بيت والبئية ميرلبا كتورا عدو أساقا تشيلي دورو شيشيا كوا أشقيا ويقتشيلي دوران ويحشون دوران هادا كوا قبيل آميسان بات تاقيرسان لكن مركان آنيغ ونبط إيا نلول iyo adiga oo nabad iyo nolol ah oo hooyo ah oo gabar ah oo aabba ah oo wiil dhalinyaro ah oo dalkiisa jecel markaan xaq sheegno in codkanaga meel fog gaarsiino waanu ka guuleysanaynaa kuwa gaalada aaminsan ee dalkooda xore aaminsan in la gumaysto ka guuleysanaynaa soo dhawaada mar walba waxaan idin sheegaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inuu yahay nin wax bartay inuu yahay kii aan sugaynay muddo 30 sano yaan idinku celceliyaano duqbulooga nimanka siyaasiyiinta ah ee mucaaradka sheegto hadalka ay hadlaan waad maqlaysaan oo ay leeyihiin tabar malihin gaalada aan su dhiibno ehna la gumaystay leeyihiin madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dhalinyarada nabad iyo nolol iyo wiilasha nabad iyo nolol iyo hooyooyinka nabad iyo nolol iyo wasiirada nabad iyo nolol iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waxay aaminsan inuu qabkooda sareeyo Soomaaliya ay la mid noqon karto Kenya Soomaaliya ay la mid noqon karto Ethiopia Soomaaliya ay la mid noqon karto Ingiriiska iyo Mareykanka dhageysta Soomaaliya oo xor baa tahay 1960 yay hooyooyin iyo aabayaal Soomaaliyeed dhagaxa inoo tuureen gabdhaha Soomaaliyeedna dahabkooda inoo gadayeen si aan dalkanaga u xor u noqdo Soomaaliya karaamadeedii iyo sharafteedii ayaa dib u soo noqday dhageyso marka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dawladdiisa nabad iyo nolol warqad bay maanta soo saartay warqad bay soo saartay loo dirayo Security Councilka warqad ku socoto ninka UN-ta haysto beesha caalamka waxa loo yaqaano warqad baa loo diray waxa loo sheegay Soomaaliya inay tahay dal xor ah waxa loo sheegay Soomaaliya in ay la mid tahay adduunyadan wadamada ku yaalo inay la mid tahay baa la xasuusiyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo tiimkiisu waa rag wax bartay weey waa rag akhrinayo warqadda waxa ku qoran ma rag intay soo kacaan idaacadaha la soo hor istaaga waxay xalayto marqaanka ku maqleen ma buug bay akhriyaan dastuur bay akhriyaan warqadda waxa ku qoran yay analyze gareeyaan oo sharciga ah ee adduunyadu dhigatay iyo kii ay Soomaaliya dhigatay ayay analyze gareeyaan qodob walba sida uu yahay iyo fasiraadda uu leeyahay yay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo tiimkiisu isticmaalaan ninka la yiraahdo dani muxuu yiri wareysi uu bixiyay uu siiyay TV-yada Soomaalida TV kamida wuxuu yiri dani ولنا وآمنسان ياهي ومدى الصوماليين ولسه هرتاقي ياهي ولبا وسلح الشونين ولا ياهي بيش عالم كوين الضمانات قاعدة وفسر اياه او وسلقوا مياه واني كداري ليران وفسر اياه دقيس الصومالي
wuxuu u fasirayaa sida tan wuxuu ku leeyahay beesha caalamka ayaa dhaqaale ina siiso beesha caalamka ayaa tabarucaadna siiso beesha caalamka ayaa inaga bixisa ciidamada beesha caalamka ayaa shilimaad ina siiso ayuu ku leeyahay saas u fasirayaa وان مواد الصوماليات ويان نكلا يرادا سعيد عبد الله الدني ومواد الصوماليات لكن دميركي سيبا انطي وهير كاجارسيسن waxay barteen dawladii kumeel gaarka ahaa waa meesha asaga xukumowi dawladii kumeel gaarka ahaa ee aan dastuurka akhrin kari waxa la dhigtay iyo kumeel gaarka dastuurka ee lagu heshiiyay waxa ku qoran rag aan akhrin karin ba kumeel gaarka in xukumay waxay ilaa hadda qaadan laayihiin oo aamin laayihiin dawladda hadda timid ee dalka naga xukunto inay yihiin rag wax barto wax akhriyo Soomaaliya damiirkaaga ha kaco istaag oo kac ogow inaan xornahay ogow inuusan safiirna gumaysan karin ogow inaysan UN na gumaysan karin ogow sida waxa la yiri lax walba meesha isdhigto ayaa lagu qalaa maanta beesha caalamka Soomaali way arkaysaa inay dib u soo noqoto way dareemaysaa Soomaali wax baratay oo aqoon-yahano ah oo looyaro ah oo laabiisti ah oo wax fahansan inay maanta dalka xukumaan beesha caalamku waa dareensan tahay دعميسو دب دم بسفير إنو تويتر انتو كسو قرو دل دن سوماليا اللي يرادا قريد سوماليا لقو حد قد بمدح بناني ديس اللي يرادا سيدان هذا الكوديكو ويسو عفجرانت ويسو نماتي دقيشت حق إذا كقر صوب مركي دي شاقيا أحمد مذوب إياداني ولا له الشي إذيكم موقدين ولا له الشيي waxaana la heshiiyay madaxweynaha federaalka Soomaaliya wuxuuna kala heshiiyay doorashada dalka Soomaaliya qaabkay u dhacayso iyo kala heshiiyay madaxweynaha dalka naga Soomaaliya heshiiskaana wuxuu dhacay 17 September buu dhacay 2020 heshiiskaasna wuxuu ahaa doorasho dadban oo selection ah oo qabiilada reeraha baarlamaanka kuraasta ay ku leeyihiin ayagu ay soo xushaan madaxweynahana ay doortaan yaa lagu heshiiyay أحمد مذوبة يدني يرجع هوست كسر ريحيو إن ما أنت جوابت عطسيني الجواب توافق قرح ذا بدن الشرفت له ومضى الصومالية كفر حسان سيني وحاول يرد الله شيء وحي كنا جنايين وحي هيد إلى يري هذا فرماجو أود ورج ما وقرصون ما هين دقيس وقرصون ومضى كقرنين معه عبد الرحمن عبد الشكور با أفيروه إذا عذها لتجنا وحي لهاين أي مرول بكسر العلينين أي شاقين أي لهاين فرماجو أودن تري يكتري يا مركوا يوسيا إلا دلك مدحوين الله بدورن مدحوين دلك ميلن يوسينا يا أودن إلا وا chief of the commander of Somalia وي يكورج chief of commander كصومالي إلا مدحوين كلا ولا ما دورن meesha ayaga ku dhaganaayeen meeshaas ahayd adduunka taa kama socoto kama dhaxdo haddaad xasan taa uu idinka yeelay oo xasan sheekh maxamuud uusan aqoonyahan ahayn uu sheegtay inuu aqoonyahan uu idinka yeelay oo warqad ka siixateen oo cabsi iyo qabiil ku disheen dawladdan qabiil lama aaminsano nabad iyo nolol baa la yiraahdaa sharcigayna baratay waa dastuurkay Soomaali dhigatay iyo sida baalasha u rogtay akhriso dhageysto الدنيا كما دحين احمد مذوبه iyo dani rag mucaaradka iyo gaalada hoosta ka soo riixayso oo Kenya iyo Imaaraadka ugu horeeyaan adduunyada kama dhicin dal aan madaxweyne yeelan oo madaxweyne loo dooran in la yiraahdo chief of commander ki joogay waxa weeye ciidankaaga kala dir oo dalkaaga kala dir adduunyada kama dhicin laakiin mid waxa jirto xeer hoosaad ah oo magarashay عادي الدنيا كدرتو دولة مركز جرتو انتهي دورشة قبطو امني جدنا اي كورجسو هادو قف كان مشرح ياهي هيئات كلو دولة دي كترسن فيري هذا تصالو كلتو بنت جام مركي مرايكا كدورشة دي كدعا اي ترام وعيدوه كسو ويرين تاقيرياشيسو اي سو ويرين اي امني قلقل قليين كبتولك بنت جام كا اسا ولي حكومي او كاها commander of the chief اساها إلا بايدن لقد داري أسا حقوق كيست دقيقة مرك أمنية ماشي أقل ماشي لكونغرسك أمنية هذا واحد لوري أو سوي district of Columbia اللي هذا أو واشنطن دي سي معمول كذا لوري أو أمنية هذا سوي
لكن chief of the commander أيضا نبكى أي حالة داي دايسي وحاها ترام وحنا حلكا كورجي مدحويني مركي للداريي اللي داريي بقريسة دلك مريكا اللي حقيقة إلا داريي يحلكا كوريجا نيكا ليدا ترام صومالي أنا حد مدحوينها أنا واعدي ومضى الصوماليين وين فرح راوي وين حقيقة وقاتاوي دقيشت معارض كان ولا يقول السرية أنا الدقبله وحنا ذكوري سوشيال ميديا كما سوقروا مركان سوقريو ريسن بانو سوقرا إن فهمتان بان دوري أي برطري هذا دقيشت وحقلب كي كنا جنايين أو يدور الشذا وحنبيين هالكم ويا ماشي عرب إن فهمتان دقيش أحمد مذوبة يدني قلب كي كنا جنايين أحيد أود وراجي أود وراجي رأى اللغة عد كغير تريم أود وراجي كوين دلك أود وراجي ماي لكن دورشة أمني هذا وحا حكوميه أو ماموريه رئيس الوزراء هالدلك الصومالية مدن حسين روبلة أي حكوميه وأنا حكومة دلك معارض كمدة عدسانية ويا ومد عالم كالنظام كأه الدستور اللي يقارن وتاوي حكومة دا سي وديسو هجاميريسو حقيقيريسو أمني الدور الشدم أحمد مذوبي يدري هيا محي كل جان مركوايا هاي وحا كل جيان أو الدور الشدم ومقرر سايا دب وقول الدوران أو مقرر سايا كالايا مقرر سايا بالكرتي وأحمد عين ورا دوران يا اللي سكت دورية واللي هالشيء وتطبيق تبكي ستبر هالشيء كاس على شعورين هدي أمنية هي دورشة اللي سكوا يشتري حكومة دا ورئيس الوزراء الروبل وحكومه يا ديان الله شيء أيجان الله شيء وستة صدي لوقت الجرين أنا هذا فسرين مدحوينا محمد عبد الله فرماجو إلا مدحوينا كان ذلك اللي قد دورته أسام مدحوينا لكن دورشة دعيسو أمني هذا إيه قبنقابة هذا إيه هوش هذا إيه دقالة فضينت هذا وحا إسكالي أو مدحوينها وكورجي وديان الله عديي أو مقرسة إذي كان الله إذين عدينا يا رئيس الوزراء محمد حسين روبلة إنه مسؤول كيا هيا الدني يا أحمد مذوبو محاد ديدنتين وحا ديدنتين شروط كدقيسان مقرسة بنت يا بربغاندا ونوشين ومدى أصول شيء مركوايا ومدى أصول شيء مد كلنا مرك أنت وأنت مسج كان قد بني إن كلام مرك الربع غير نبض إنه سير جري عجلتنا وحيدين في السير الربع كرباش بلا يرى كرباش يرقعد ما لنا وتمركي مدحوين محمد عبد الله فرماجو ويري ولا ريارو كاريا عن سني مادنو ويدي دنايين ويبيشان عالم كي شيغانيان ما أنت ورقد ومدحوينه هيك صوص صاري هوست كجدرين برشر أنك صارني سفير هذا حالات جوجو فرقلين تكوها يضل كنجا دولة إذا برشر صارت أو تري ضل كان وضل مدح بنار فرع كربا مركي الله شيء يدري يا أحمد مذوبي اللي حقيقي اللي ويري ور أنجو دمارد مقعد كرنو مسؤوليتنا كملهن ضل كصومالية الدور الشديس ولا ليالو أنك بناء كاسان جوجي ناي أرض مدحوينه إن يمقرر شيء هو شيء نقله مدحوينه قدام أنت اللوس عدي أو دولة الصومالية أنا حقيقي مدحوين محمد عبد الله فرماجو وحصوص على ورقد دقيش ورقد بصوص عليه وحيري ولا ليالو وأنا سوني مادنا تندد وأنا سوني مادنا في سوري ورقد مركو سيدا مدحوينها أصل صاري أن أجنهي أو مدى الصوماليين نلصعته أو بيش عالم كشيء نلصعته يدري يا أحمد مذوبة إني سيدي عرورتي عمل يا ورقد كلا صارين فرماجة أنك نمع الزوميره فرماجة أنك نمع الزوميره بيش عالمك أيان نعزون تبي يرادين يسو هذا الكأدو لقى السبالي بيش عالمك أيان نعزون تبي فرماجة نمع الزوم ومدى الصوماليين انت وناقة جعل في عنات جعل ويابين وحلا يسويديه ورويلك ورال كوده مدحوينها مقرسة دلك الصومالي أمير كيسي كا وحاوي ويصيان وهوس بيقول دقيان وهذا الكيسي وحكا دقيان وحاوح باهين قال أن أوغين أن عرنتن مقرسة أوغين وياقا إني أفريكايين صومالي سكينيين أمسن كردت بيسيريان لكن حقيقة بيتك
ريالتي إيه حقيقة نبتهيد أي تكتب وحقال أوه جوجل في دي ما أدري مدحونا محمد عبد الله فرماجو أيا بحيلي قرشاتك بريسكي عنيم مدحونا محمد عبد الله فرماجو أيا بحيلي قرشاتك شاه كعبين مدحونا محمد عبد الله فرماجو أيا تندم قرشة ودقي أو كوير كراسنا يدهيا اللي يحرون مدحونا جاب كيسة كبحدي الدولة الفدرالية السعودية دقيقة markii la fariistay teendada waan ka soo hadlo dib ugu noqon maayo laakiin waxa rabaa waxyaabaha hadda iskor saaran umadii magaraysaa ee qaarkoodna ay wax fahmeen qaarna ay dawaqsiin inay fahmaan baa doonaya dhageysta Axmed Madoobe iyo Dari waa ku eebabeen siyaasadda Soomaaliya waana ku fashilmeen siyaasadda Soomaaliya qodobkay ku dhaganaayeen ee ahaa marnaba tanazulaad way dhamaatay madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo iyo dawladda federaalka waa ka dhamaatay tanazulaad intaasaa loo soo tanazulayay rag aqli la way noqon waayeen intaasaa magaraysaa loo soo tadheereynay rag aqli la way noqon waayeen tanay hadda ku dhagayn ay ku dhaganaayeen wuxuu ahaa qodobka amniga doorashada oo excuse ka dhiganayeen oo ahayd 19 bishii February yaa weer lagu qaaday meel hebel iyo hadalla macna la'aan oo ognahay qisada 19 siday ku timid bees caalamka ay ku ordayaanna warqaday soo saartay umada Soomaaliyeedna way ogta waana loo muraajaceynaya ay ku dhaganaayeen gaalada u sheegayeen wuxuu ahaa qodobka amniga doorashada qodobkiisa ayay ahayd in ayaga lagala gorgortamo ayaga shuruud ay ka dhigaan magaraysaa gaalada hoos ka galaan isbahdilaan qaab darro nooca ku socoto hool noocaasi wateen laakiin madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo waa very smart and intelligent man warqadda maanta la soo qoray yaa lagu qoray waxaa la yiri amniga doorashada waxaa la wareegaya si toos ah ra'iisul wasaaraha oo xukuumadda dalka Soomaaliya oo xilgaarsiinta wayna socotaa waxaana sharci galaysaa oo magaraysaa si toos ah magaraysaa meelaha warfaafinta dawladda lagu faafin doonaa maalinka uu madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ku dhawaaqo in doorasho dalka aado uu sheego inuu asagana yahay musharax maalintaas uu dhaqangelinaya ninka la yiraahdo roob loo dhaqangelinaya ayagana waxay rabaan oo ku doodeen annaga 19 dhibaata dhacday magaraysaa farmaajo ma aaminayno ee amniga iyo magaraysaa doorashadeeda ee khayr ninka la yiraahdo rooblaha lagu wareejiyo ilaa cid kale maanta loo dhiibay amniga dalka qaranka Soomaaliyeed ma jirto doorashada Soomaaliyeedna cid kale lagu aaminayo oo dadka Soomaaliyeed ahayn ma jirto Axmed Madoobe iyo Dani cycle cidla ah oo desert ah yaa loo dhaxstaajiyo qodobkay ku doodayeen shuruuda doorashada uga dhigtay yaa si cad oo siyaasadaysan oo very smart oo dawladnimada magaraysaa ku dhisan sharcigeeda ku dhisan yaa adduunyadii lagu cadeeyo cidii diido waa cid doorasho diidka cidii diido waa cid hormar diidka ay dalkan ay ka soo cidii ka hortimaado waa ciidan diyaar u ahayn dalkan inuu hor u socdo Axmed Madoobe dan qodobkay ku dhiganayeen kaasoo amniga doorashada loo dhiibo ninka la yiraahdo roob oo annaga hana laga tashado hadalkay wadeen kaas weey oo idinka tagay hadalkay wadeen oo ayaga dhahayeen wuxuu ahaa amniga doorashada hal lagu wareejiyo ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ee xukuumadda xilgaarsiinta lagu wareejiyo maadaama madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo uu musharax yahay laakiin waxay rabeen in ayaga lagala tashado hawsha ay dawladda federaalka qabanayso in ayaga lagala tashado oo ayaga magaraysaa la soo fariisiyo annaga nirahna inay yiraahdaan laakiin ma dhicin dawladda federaalka Soomaaliya markuu madaxweynaha ku dhawaaqo inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynimada dalka Soomaaliya waxa amniga doorashada iyo xilgaarsiinta dalka si toos ah ula wareegaya oo dastuuriya ra'iisul wasaaraha dalka naga Maxamed Xuseen Rooble adduunyadii ay u dhawaaqayeen ila international community kamid bana laakiin arrimaha naga faraha lama soo gali karto qoliyihii ay u dhawaaqayeen oo magaraysaa shuruuda dawladda uga dhigayeen si dastuuri ah oo nidaamka diblomaasiyadeed qaabilsan yaa warqad loogu diro beesha caalamka loogu diro amniga waxa la wareegay doorashada xukuumadda xilgaarsiinta waana hool dawladda u taalo way hool Axmed Madoobe iyo Dani oo dekadahooda dhaqaalaha federaalku ay ku leed aana siinin oo waliba Muqdisho waxa laga qaaday ayaga la siiyo lagala tashan maayo howsha halkaas ku soo dhamaatay Axmed Madoobe iyo Dani waa gaalkalkaal wey waa gumaysi jecel waxay rabaan in dalka naga gacanta loo geliyo gaalo
gaala in gacanta loo geliyo oo ina gumaysato oo nala gumaysto yay diyaar u yihiin axmed madoobe iyo dani laakiin dalka waxaa xukumo oo mas-uulka ah madaxweyne dalkiisa jecel oo dalkiisa ma garanaysaa ka garanaya wadamada kale aad uga yaqaano yaa dalka xukumo ayaguna ma yaqaanaan dalkooda oo inta yaray reerkooda degan yihiin yay dalkii Soomaaliyeed inay gaalo hoos geeyaan oo gaaladu gubaysato yay dabacsayn axmed madoobe iyo dani waa qabiil istiyaal wey waa laba nin oo isku reer wey dani gaala uu aaminsan axmed madoobena kismaayo aaminsan in dadka kale oo Soomaaliyeed oo dhan ay baaba'aan oo liinja afka loo geliyo oo maxmiyad la geliyo oo la gubaysto yay wallahi ka jecel yihiin inay reerooda noolaadaan dhageysta dalka laakiin sharaftii Soomaaliyeed ayaa soo noqotay karaamadii ummadda Soomaaliyeed ayaa dib u soo noqotay Soomaaliya sharafteedii iyo guusheedii ayaa dib u soo noqotay madaxweyne waan kugu faannaa ummadda annaga sidaas ugu sheegayno xaqiiqda jirta iyo dhabta jirta annaga ugu sheegayno reernabadiina waan ka guulaysanay cadawgii social media aan isku haynay ee magacyada caayda annaga la daba socdo waa ka cod waa weynahay waa ka lagu dhaadheernahay waa ka laan dheeraysanahay waana ka sharaf badanna ma shaqaystaan 200 bay tubsanayaan دري أحمد مدوي سبا وترير مالي وحد عيسو ومالي وحد الدنيا الصومالية مركي الصومالية جردون الدنيا جردون إن أحمد مدوي يدري برناك نجح له قدر اللي انترير كخيانة وراه دل كيسد خيانة قال أصهر صدو اللي قم يستجعل ربو قبيل يرهن من متلو وحاول وضمنا عرب كجعان برأه بس قبطان لكن نصيب ضر ضل كيك الصومالية قبيل برجادي أحمد مدوبها سبا أهضليو يدني النوع أهضليو قال هذا النولد يبقى كل عيو ضد قبيل كنت هاجري وقبيل وقصب حرين قبيل وقصب حرين وأهلية وجيش ضد كل عيو دقيش ويقول ستي الدولة دنا وقوليستي فرماجو قال كدنبه ورقد صغره يانو أركينا سفير كدنبه مقدسات جوجو حالنات جوجو ورقد انتو صغره مدح بناني دا دلك هيك كوعد قدبو واللي سجوجا اي فرماجة برشا اذن كلها بنيده برشا ونكسن دريو اذا عذاب حقنا مع الله ده سؤال بكويتريا كل فويس في أمريكا دوعيسة وراه ليرو إله الله مقرسات إنك دب سروال نوع عصوتا شات نوع عصوتا يا كويسة ما ترى تي في ده تاجت ورشته بكس واد عيبودين دلكني بات قال إيه جميسي كأنت إنا دوق لسان دياروتين قال هذا دور ديسين إدو على ريسين رتب الله شجع دلك إنه دل مدح بناية ما الله شجع دي وقوسه مقنع والله ولا وسو مقيه دريو او حقيقه دبتان كو شيغي ولا وسو مقيه نعس ما تبع احمد نور صباح is gone is over كسماي افر بلود باي هرت اوغست 19 ترسنيا وهذا ابريل بان كجرا waxa ii haray waa May iyo June iyo July ba ii haray Axmed Madow wala soof daraya sagara dalkan madaxweyne u yeeshay asaan ugu codeynayna afartii sanaba farmaajo dooran every 4 years oo soo socoto inta Soomaaliya great Soomaaliya ee ka soo noqonaysa sano codana reerkanaga dan ugu ma jirto reerkanaga kan maaha reerkanaga dadkii baa noolaaday reer waa ka daaleen Soomaali reer Soomaali waa ka daaleen ummadii Soomaaliyeed ee dulmaneed ee gaajada lagu dilay baa nool oo sharaf ku nool oo cizi ku nool oo karaamo ku nool dariyo حتى نن هذا اللي يقارن متي دري ببعو والله بيننا نن هذا اللي يقارن متي مر والبود أفكار قادة أبسط بتجلسها ريركي بقرطويدها إلا أن درياسها الرب ولا بقر برهان وإله كده إله كشرف إله كشرف لقى ما وين بقرطويدها والأغلب بدن صومالنا أهيليو بلنا أهيليو لقى ما وين دري ببعو بس كي مانع وقوليه قال هذا وأنا نسودي من ور بقرطويدها قال ده صعود حاجة لقوارك dadkii xurriyada absaaq xaaj Xuseen Cabdullaahi Yuusuf raga maanta dadka iigu jiro ee caalanka buluuga u diiday inuu dhul dhaco daniyo maanta waxa tahay ilaa qof buurada aqal la maragtay raga ma soo saakad hatta kaamirada laga duubay nin fiirnaya mati waa ninkii ugu horeeyay Puntland soo maro ee oraya waan baqaya waan cabsanaya yira xagee lagu arkay nin reer Puntland oo oraya waan baqaya oo waliba madaxweyne oo ciidan ilaalinayaan dad gar waan baqaya waan cabsanaya baaba waan baqaya kuhay furay aadiyad laakiin ummadii ku baratay siyaasad Soomaaliya waa kaaga dhamaatay reer Puntland qasaaro ayaa dhaxsaajisay nin waxaa noqotay rag dharkooda ka shakeeray oo dhaay dubbe iyo duqbarow saatigaas noocaas wataan barfuunkooda waa magaranaysaa nooc caawi nacas
wax kale ku tilmaamo ku garan maanay laakiin doqon miciyaha inta la eg yihiin oo rag dharkooda ka shakeeyay afgaroocna welnaata oo idaacada maanta taagneeda ka daawarin xataa waxba waan ka fahmin inta kaliya ka fahnaa waxay tahay in gaal dalkan haloo dhiibaad leedahay oo ku eewowday Soomaali dhaxdeeda oo waliba afkaaga isku fashilay waliba wana ku qasbeen idaacadaha kale waa la caadi ah inaad weelato musqulaha adoo qabaysanayo oo waalan waan baqayaa oo qabaysanayo dhar la'aan inaad social media ka daawana ballan ba ku qaad Puntland way jiraysaa war boqortooyadii Soomaaliya burburna uma ogolin nabad baan ogolna cirkaasna maraysa laakiin nacaska noocaaga kale ee gaalada aaminsan waa laga qabanaya adiga Axmed Geeda Naar labadiinaba hangool baa saaleed ku qabanay inta farmaajo ma idin ku ciyaar jari farmaajo ma idin ku ciyaar sida caruurtii ma idin ku ciyaar horta inaadan rag aqoon lahayn oo jaahiliin oo tareer inaad tihiin Soomaali ma idin tusay farmaajo bees caalamkiina ma idin ku wararto ma idin ku tir carabaatiina warar dalkiina u taliyo ma idin ku yir bees safiirada isku haleynaysa Kenyaanka iyo qolada hoosta wax ka soo riixayso digniin cad baa la si wasiirkayga arrimaha dibadda ma sha Allah guulayso wasiir digniin cad ah oo dal madax banaan u bixiyo iyo dawladdeeda bixiso keewaya gaalka soo duuli karo intuu hub soo qaato madax banaanida iyo sharafta iyo dignitiga iyo sarftiga Soomaaliya ku soo xadgudbi kara keewaya ma jirto ma dhacays dhagiisa marka Soomaalida nabadda jecel ee wanaaga jecel ee aan ka dhashay ee dhiigooda ku faano ee Soomaalnimadooda ku faano aad ii dhageysta wala Mareykan baan deganahay anoo duqbalo Minneapolis baan deganahay doorasho ka dhacday hadda sanadkan hadda 2020 dhamaadkiisa oo November Trump iyo Biden dhahan baa tartamay Mareykanka wuxuu ka dooday uu ka dagaalamay in doorashadiisa arrimaha gudaha uu san wadan kale soo faragelin Russia fiiri kamaysan hadal xayisiin bay Facebook kaliya soo galis oo undercover oo loogayn Mareykan siyaasiyadiisi iyo shacabkiisi waa kaceen tareer Russia u shaqeeya lagu leeb garasha dagaal baa la qaaday buuq dalka dhacay intaasoo Congress-ka fariisanayay aqalka sare fariisanayay la doodayo laha sidee baa loo soo faragelin karaa doorashadannada arrimaha gudaha ciddii doonto ha ku soo baxdo cidday doonto ha ku soo baxdo Trump hadda ka tagay wadanka muxuu ahaa TV-yadu ka hadli jiray gabdhaha Mrs. America gabdhaha qurux badan iyo casinoyin Taj Mahal waxbuu iska lahaan jiray magaraysaa laakiin doorashadooda ciddii dadkooda ay rabaan ay doortaan oo jecel yihiin ya xaq u leh laakiin loo ma yeeri karo safiir dhex joogay Washington oo makaanaga ha noqdo ama ka Ingiriiska ha noqdo ama ka wadan kale ha noqdo intuu warqad soo qor ma dhihi karo doorashada degdeg ka lama karo see adi ku ogolaataa Soomaaliya marka sidee baad ka lagaga dhaadhiciyaa oo ku ogolaataa in lagu bahdilo gumaysiga suu igu dhaqaajiyaa rag qaar afar xabo oo tareer oo qiyaano qala ku jiro see aan gaal iga dhaadhiciyaa ha gumaysto gaalada waa ka adagna wiil gaaladan fahmay aqoonyahan oo wax bartay ya dalkayga xukumay waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la yiraahdaa magaciisa gaalka oo baqadeer macaan gaalka la cabsado dalkiisa nin jecel weey amba dalkayga waa jecel Mareykan baan deganaa wallahi baan ka baqin inaan wanaaga dalkayga shaqoolaan ka cabsanin dhageysto waan guulaysanay Soomaaliya guulaysatay adiga guulaystay aniga guulaystay sharaftanada iyo qabkanay baa soo nool aan ka adkaano oo aan diidno kuwa qabiilka aaminsan ee reerka aaminsan ee ogol in Soomaaliya la sii baado ee ogol qabki Soomaaliyeed in hoos loo dhigo aan ka guulaysano wallahi waan ka guulaysano wallahi waan ka sharaf badannahay waana ka guulaysanayna muwaadin dhageyso dalkana la iskale ownerka waa adiga ninka ownerka iyo gabadha ownerada ah ee dalka Soomaaliya iskale waa adiga hadda daawanayo weey dari bana ka xigin Axmed Madoobe ka xigin tareer qabiilisto oo qabyaalada aaminsan ba ka xigin u kac dalkaaga istaag dalkaaga difaac dalkaaga sharafta hadii Soomaaliya sharafteeda la dhaawaco oo la bahdilo ma aha Soomaali ma jirto Soomaaliga waa adiga qofka la bahdilay ee magaraysa dignitigiisi iyo sharaftiisa lagu ciyaaray isnaara anybody else adiga weey adoo Soomaaliya oo magacii Soomaaliyeed huwan oo Soomaaligas la sheegayo iyo dalka Soomaaliga la sheegayo waa adiga weey diid Axmed Madoobe qabiilista diid dan qabiilista diid kuwa qabyaalada kugu hoos wada diid Soomaali adiga weey haday baawar yeelato ada baawar yeesho
هذي قاس لصبح أنا قاس لصبح هذي سوماليا دين لقول هذا أديك دين لقول هذا هذي سوماليا بهدلاتو أو اللي بهدلنا أنا اللي بهدلوه it's not of كلام سوماليا هقول استله مدن مدحويري وكقرب تاجنا تنزل واحد ماضي تنزل دمبه دل كان مقرش أحمد مذوبية الدري لو تنزلوا واحد ماضي دل كهرب أسعن هذي ديدان إن يمادان برلمان كالسوماليات هو يوين كنا فديان بياش النذي فدياني مدح النذي يقول ينذي فديان ولا فصحاوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.